sheekadan waxaana la soo wadaagay mid ka mid ah daawadayaasha barnaamijka. codti isaga ka yimi awgii ayaan u qarinaynaa magaciisa dhabta ah. hase ahaatee magacaanu sheekadan ugu bixinay ayaa ah xasan. magacayga waa xasan. waxaan ku dhashay magaalada boorama. dugsigaygii hoose, kii dhexe iyo kii sareba halkaasi ayaan ku qaatay. muddo kadib waxaan isu diyaariyey inaan galo jaamacadda. waxaan dhigtay oo aan ka baxay jaamacadda Camuud. inta aan dugsiga soo dhiganayay iyo inta aan ku jiray jaamacadda waxaan warmooga ka ahaa inuu jiro wax la yidhaahdo jacayl. waan la yaabi jiray qofka iga sheekeeya jacaylka. waxaan u aqaanin qof daciifa oo aan lahayn dareemayaal iyo xadid uu ku xadida naftiisa. maan yeelanin wax xidhiidha, hase ahaatee waxaan lahaa hablo asxaab ah oo aad u tiro badan. wax dareen jacayl la yidhaahdana maan aqoonin. laakiin marka aan fikero inaan isiraahdo talow qof noocee ah ayaa noloshaada la wadaagi lahayd, waxaan ka fikiraa arrimo guur. laakiin wax jacayl la yidhaahdaa weli wuu ii maqayahay. waxaan u soo hayaamay magaalada Hargeysa si aan uga sii wato jaamacad oon waxbarashadeeda uga sii kordhisto iyo shaqo markaasi la iigu yeedhay. muddo sanadii 4 bilood ah ayaan Hargeysa ka shaqaynayay. magaaladii baan la qabsaday. sidoo kale waxaan la qabsaday bii'addii aan ka imi mid ka duwan oon la kulmay oo ahayd magaaladii Hargeysa. muddadaa kadib waxaa caado ii ahayd inaan markaan ka soo baxo shaqada oo ahayd suuqa hoose inaan soo maro waddada saldhigga dhexe ee magaalada tagta. marka intaasi laga yimaado waxaa caado ii ahayd inaan soo maro waddada bartanka u ah magaalada Hargeysa. halkaasi ayaan fiidka marka aan shaqada ka soo rawaxo soo mari jiray. caawa way ka duwantay habeenadii hore ee aan soo rawaxi jiray. waxay indhahaygu aanan filaynin u qabteen mid ka mid ah dadka waddada maraya. waa 2 hablood, inanbaa xaggayga soo xigta. waa dareen aanan weligay dareemin. waa qof ka duwan hablihii aan arki jiray. qalbigayga ayay inantii saamayn iyo raad ku yeelatay. heeraan ilaaway meelaan u socdo oo aan dabagalay. sidai inantii hor socotay ayaa waxaa iga raacday baabuur. anigoon garanaynin jihaalla jahaan ku socdo ayaan iska soo noqday. muddo 2 bilood ah sheekadaas waxay noqotay sheeko aan ka sheekeeyo. waayo waxaan dareemay dareen aanan weligay dareemin. maxay kaga duwaneyd ayay ahayd su-aalahaan isweydiiyey hablihii kale dariiqa marayay. triig ama laydh aanan garanayn meeluu ka yimid ayaa iyada ka dulbidhaamayay. 2 bilood ayaan sheekadaa ku celcelinayay asxaabtayda, cid kastoo i taqaanay aan uga sheekaynaya. qof kastaa wuxuu igu idhaahdaa waxaad aragtay malaajin buu ahaa. laakiin maskaxdaydu may ka fakeraynin inaan qofkii mar damba kulmi karno ama aanu isbaran karno ama waxna dhex mari karaa. muddadaa 2 bilood kadib si kadisa isla habeenadii oo kale ka mid ah halkii annagoo maraynaa ayaan aragnay inantii iyo inan kale. iyadu miyay iga qarsoomaysaa, miyay dadka kale iga qaldamaysaa? waan gartay, laakiin habeenadii hore way ka duwan tahay. caawa waxaan la socdaa saaxiibkay, gaadhina waan wadanaa. saaxiibkay baa si dabacsan hablihii ula hadlay. waanu qaadnay xaafadooda oo aad u durugsanayd baanu geynay. lambarkii waanu ka qorannay. lambarka inanta la qortay mataan anigu rabaa mise waa ta kale ma kala hubo. waxaa loo baahan yahay dhiiranaantii lagula hadli lahaa inanta iyo ku dhici. adigu lambarkii markii aan seefgaraystay inantii waanu kaftanay iyadii bay noqotay. kaftan badan kadib waanu wada sheekaysanay. xidhiidh ayaana dhex maray. muddo 2 sana ah ayaanu xidhiidh wadaagahay. 3 jeer oo maalintii ka mid ah ayaanu iswaraysan jirnay oonu xidhiidh u soo wada hadli jirnay. aniga 3 jeer way igu yartahay. waxaan noqday qof noloshiisa iyo qalbigiisu meel kale ku xidhan yahay. maskaxdayda iyo qalbiga qudheedana dagaal baa ka dhexeeya. waxay noqotay qof aan ku ilaashada khadka. saacaddan khadka ka waayo warwar baa ii dhan. maskaxdayda waa mashquulsan tahay. waan raadinayaa, waan fakerayaa. markaan ugu horraysay ay la soo hadasho su-aalaan ka horgeynayaa. maxaad qabatay? maxaad iila soo hadli weyday? maxaad samaysay? haddana waxyaabo daruuri ah inuu qofku u bixi karo waa waxaan ogahay, waa waxaan dareensanahay. laakiin ma xakamayn karo qalbigayga iyo dareemahan doonaya markasta inay codkeeda maqlaan. muddo 2 sana kadib xiriirkaygu meel fiican buu marayaa. waanu sheekaysanaa, waanu kulannay. laakiin weli qorshe guur kamaanaan wada hadlin. hase ahaatee waanu waxa ugu dambeeyay aanu ka fikirno aanu labadayduba ku hamino waa inaanu isguursanno. iyadu waa ogol, aniguna aad baan ugu hanweynahay. waa qofka nolosha ku hamiyeyey. waa fariid dhinac walba iga kaabi kartaa. qorshahayguu yahay inaanu isguursanno. laakiin qoraalkii ilaahay iyo qadarkii ilaahayna meel buu yaallay. marka qaar markaan ka fikero haddii lagaa qaado, haddii ay lagaa guursado, haddiiba qadarkii calafkiidan kaxeey, waa halka fakarkayga ugu dambaysa. waa halka ay noloshayda ku dhammaato. wax ka dambeeyoon ka fikeri karaa ma jiro. qofka noocaa iyo saamaynta noocaa igu yeeshay maan filaynin inuu saamaynta intaa lig qalbigayga ku yeelan karo qof. hase ahaatee way dhacday. muddo kadib markii 2 sano aanu wax noo dheeraadeen ee aanu soo dhaafnay
inantii habeenada ka mid ayaan si kadis igu tiri arrimo dhoof baa ii socday muddaan daba socday waa la ii yeedhay Itoobiya la iga yeedhay waa inaan taga waxay igu noqotay cirka iyo dhulka oo isu yimiday sheeko aan u qaadan waayay hase ahaatee Itoobiya way ila dhowdahay mana raaci karo laakiin waanu isla falanqaynay anoon ogeynaya inantii tagtay Itoobiya tagtay way baxday markii u dambeysay khadka message-iga soo dirtay sababa ayaan ku socdaa sheekadii dhoofka ayaan u tagayaa intaas ayaa qoraalkii ugu dambeeyay aan jacaylkayga ka haysta ma aqaano goorta aan sheekadan qorayo inay nooshahay iyo inay dhimatay laakiin waa markii ugu dambeysay waqtiga laga soo wareegay ilaa imika waxa laga joogaa muddo 4 sano 4 sano xiriir waan yeeshay waana rajaynayaa inaan guursado oo mustaqbal samaysto laakiin ma jiro qof sida aan inantaa u jeclaaday ama jeclaan karo waa jacaylkaygii u horreeyay waana jacaylkaygii u dambeeyay haddii ay sheekadayda maqasho ama ay garato waxaan jeclaan lahaa inay xitaa hadday reer tahay oo la guursado ila soo hadasho ama ila soo xidhiidho